السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqod wanaagsan asxaabta qiimaha qaaya badan waxaan sameynaynaa barashada badsan biga argumental 22aad qaybtiisa afraad qaybta quiz. Sababtii maray waxaan soo sameynay dhammaan argumentaashka hoose kan 22 laga soo bilaabo kan koobaad ilaa kan 22aad qaybood faafahintii qaybood quiz waxaad ka daawan kartaa YouTube-keena argument kasta su'aalihiisa isku aadan playlist ahaan. Sidoo kale YouTube waxaad ka daawan kartaa barashada luqadda afjar marka af English ka Talyaaniga wixii kale oo la mid ah ka bogasho waxaan argumentaan waxaan uga hadlaynaa alcohol e droga, okay? Qamrada iyo maxaa la yiraahdaa muqaadaraad kale. Se un ferito della strada si è ostionato e sono ancora presenti delle residui di fiamme, bisogna aspettare che si spengano da sole prima di intervenire. La risposta falso è se un ferito haddii qof dhaawac della strada wadada si è ostionato oo dab qabsado e sono ancora presenti weli in ay jiraan delle residui fiamme dabka kacsano dhinacyadiisa jirkiisa ka mid ah bisogna waxaa loo baahan yahay asbitaara in la sugo ka si spengano da sole ilaa iska daminayaan ilaa iska daminaya keligiis dabka falsissimo waa inaan ku beerta ku daboolnaa mise biyo qabow ku shubnaa. Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo strano in un occhio bisogna costringerlo a tenere gli occhi aperti per evitare altre lesioni. Se ad un infortunato haddii qof macnaha nasiib daro ku dhacday dalla strada wadada entrato un corpo strano in un occhio oo isha ay wax ka galaan bisogna waxaa loo baahan costringerlo inaan ku qasabno a tenere gli occhi aperti indhaha inay kala qaadsanaadaan ama ay feednaadaan per evitare altre lesioni. Falso è qof isha qashan kaga jiro oo weli ishiisa feed la dhahay weli maaragtay waa isha waa la isku qabtaa qashanka laga bixiyaa ama maraa la dul saaraa, okay? Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo strano in un occhio, cinghia di vetro, legno o altro, bisogna bandirglielo senza procedere ad altra manovra. Se ad un infortunato haddii qof dhaawac della strada wadada è entrato un corpo strano oo ishay wax ka galaan cinghia di vetro ama finil maalahay ama jab dhalaa legno ama alwaax o altro ama wax kale bisogna wax loo baahan bandirglielo in la daboolo senza procedere annagoona sameynin wax kale esatto isha waa inaan mara ka saarnaa. Lo stato di shock si manifesta con pelle molto pallida e sudorazione fredda, frequenti battiti del cuore. Lo stato di shock qofka markuu shock yahay si manifesta waxaa lagu garanaya con pelle molto pallida sudorazione inuu dhidido jirkiisa oo aad xaadiis oo tataagan waxyaa noocaas fredda frequenti battita iyo boodbood badan oo del cuore wadnihiisa inay saaid u garaacmaan esatto vero, okay? Se un ferito della strada si è ostionato e sono ancora presenti delle residui fiamme bisogna spegnerle soffocandole ad esempio con un coperta. Esatto. Se un ferito della strada haddii qof dhaawac si è ostionato uu gubto ama dab qabsado e sono ancora presenti weli inay jiraan delle residui fiamme dab bisogna waxaa loo baahan spegnerle in la damiyo dabkaas soffocandole anagoo ku dadayna ama ku daboolayna ad esempio tusaale con un coperta okay? Coperta ama biyo qabow vero. Un ferito in stato di shock va di stesso tenendo possibilmente le gambe sollevate. Un ferito in stato di shock qofku markuu shock yahay va di stesso waa in maxaa la yirahdaa la dhigaa dhulka tenendo possibilmente le gambe sollevate lugihiisa kor loo qaadaa esatto vero. Durante un intervento di primo soccorso se l'infortunato ha una ferita sanguinante con presenza di corpi strani conficcati non bisogna toglierle dalla ferita. Durante un intervento inta lagu jiro macnaha howlgalka del primo soccorso se l'infortunato haddii qofka dhaawac soo gaaray ha un ferito dhaawac sanguinante dhiig baxaya con presenza di corpi strani conficcati non bisogna toglierlo dalla ferita. Esatto, la risposta vera. Il film bro, se un infortunato della strada ha avuto un trauma della gabbia troscica bisogna assisterlo fino all'arrivo del soccorso medico. Qof haddaa aragna waddo dhaawac ku ah oo gaari la dhacay ama gaari shil galay ama waa inaan anigana caawinaa ilaa uu ka imaanayo qofka markaas dhakhtarka iyo wixii shaqadaas leh ama vero. Un ferito in stato di shock
va messo in posizione seduta. Un ferito qof dhaawac in stato di shock markuu shoog yahay va messo waxaa la rabaa in posizione seduta in caadi loo fadhiisiino waa in la seexiyaa lugihiisa kor loo qaadaa. Okay. È opportuno per il conducente che causa segni di stanchezza avvicinarsi il più possibile al veicolo che lo precede nella marcia. Falso è opportuno way gudboon tahay ama way habboon tahay ama way wanaagsan tahay per il conducente darawalka che causa segni di stanchezza darawalka markuu uu dareemo daal sida taraaglayaasha oo kale oo saacadaha badan wadada saaran uu daal dareemo avvicinarsi inuu hoosta kasoo galo kusoo dhawaada il più possibile sida ugu wanaagsan al veicolo gaariga che lo precede nella marcia yani waa gaariga ka horeeya waa inuu hoosta kasoo galaa. Falso è adoo daalan haddaa gaariga hoosta kasoo gasho falcelintaada daahayso marka dhibaataa la kulmi karto. Okay? Per diminuire il dolore delle ustioni si deve se possibile fare uso di acqua fredda. Per diminuire si loo yareeyo il dolore xanuunka ama danqashada delle ustioni dabka keenay si deve waa inuu yiri se possibile haddii ay suurtagal tahay fare uso loo isticmaalaa di acqua fredda biyo qabow. Esatto. Se un infortunato della strada ha abbondante emorragia esterna si deve coprire la ferita per camminare, si deve coprire la ferita e far camminare l'infortunato. No, falsissimo, e non si può far camminare. Qof dhaawac ma dhehe istaaga soco cunug socod baradnaya macna. Se ad un infortunato della strada è entrato un corpo strano in un occhio, bisogna consigliargli di non toccare l'occhio danneggiato per evitare danni maggiori. Esatto. Ad un infortunato della strada haddii qof nasiib daro ku dhacdo shil ku dhaco wadada aan kula kulno entrato un corpo strano in un occhio ishin ay wax ka galaan bisogna waxaa loo baahan consigliargli inaan kula talino di non toccare inuusan taabanin l'occhio isha danneggiato oo dhaawac gaaray per evitare si looga fogaado danni maggiori khasaaro fara badan. Esatto. Okay. Un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche può recuperare velocemente l'idoneità alla guida se assume cibi piuttosto salati. Falsissimo, ok? Se un ferito della strada si è ustionato è consigliabile non togliere i vestiti rimasti attaccati alla pelle bruciata. Esatto. Se un ferito di qof dhaawac della strada wadada si è ustionato o gubto è consigliabile way wanaagsan tahay in lagula taliyo non togliere inuusan ka fujinin i vestiti dharka rimasti ku hadhay attaccati ku dhegan alla pelle bruciata jirka gubtay yani adoo jaakad bacbac wata haddii dab ku qabso jaakad oo gubsan dharkaaga ay ku haraysaa sooma marka haddaa dhahda isla markii hore ka fujinaa maqaarkaa fiiqmaya brada. Okay? Inaa fujisin adeero. Dopo un incidente stradale il soccorritore che interviene deve valutare bene la situazione per proteggere gli infortunati da altri pericoli. Esatto. Dopo un incidente markuu shil dhaco stradale wadada il soccorritore caawiyaha che interviene oo falcelinta sameynaya deve valutare waa inuu qiimeeyaa bene si wanaagsan u qiimeeyaa la situazione xaaladda per proteggere si uu uga badbaadiyo l'infortunati dadka dhaawac dhibaatada gaartay da altri pericoli waa inuu macnaha qiimeeyaa si uu uga badbaadiyo khasaare kale. Esatto. Okay. Un ferito in stato di shock va coperto come meglio possibile per evitare che si raffredda. Vero? Esatto. Okay. Bisogna soccorrere un ferito della strada solo se si considera gravi gli incidenti. Bisogna waxaa loo baahan yahay soccorrere in la caawiyo un ferito qof dhaawaca della strada wadada solo keliya se si considera marka lagu qiimeynayo gravi gli incidenti shilka mid khatartiisa no markasta waa inaan caawino. Okay? L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di integratore di sali minerali. Sale minerali haddaa isticmaasho gaari wadowga dhibaato uma geysanayso. Falso. L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di bevande alcoliche. Esatto. Qofka markuu qamro cabo markuu xay yahay sida gaariga wadi lahaa uma wadaayo waayo qof cabsan waaya
marmar asoo gaari wado inuu diyaarad wado moodaa sooma marka può compromettere il vero ok su-aasha sagaal tobnaad noo fadhiya kow iyo labaatanaad se ad un infortunato della strada è entrato un colpo strano in un occhio bisogna cercare sempre e comunque di toglierlo non possiamo togliere falsissimo esatto l'assunzione di LSD l'anfetamina non compromette la facoltà di guida l'assunzione استعمال LSD droga lahaa l'anfetamina iyo waxyaabaha anfetamiinka non compromette ma caqabadaynayaan la facoltà di guida gaarigooda falsissimo perché way caqabadaynayaan lo stato di shock si manifesta con presenza di brividi pelle molto pallida e sudorazione fredda alla fronte esatto vero ok se un infortunato della strada ha riportato frattura agli arti non bisogna muovere agli arti fratturati vero esatto se un fortunato di qof dhaawac della strada wadada ha riportato frattura o jabo agli arti xubnaha jir qayb ka mid ah non bisogna looma baahanya muovere inuu dhaqdhaqaaq sameeyo ama uu dhaqaajiyo agli arti fratturati lafaha kala furfurmay ama jabay esatto vero Filmi bro, l'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di hallucinogeni, LSD, ecstasy, eccetera, eccetera. Hallucinogeni io LSD io ecstasy waxaasan dad droogo waay marka way caqabadaynaysaa gaarigooda vero un ferito in stato di shock va messo a terra se possibile con le gambe sollevate esatto prima qofka markuu dhaawacay in stato di shock yahay waa in la seexiyaa lugihiis kor loo qaadaa l'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di farmaci antidepressivi può essere compromessa esatto vero ok un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche può recuperare velocemente l'idoneità alla guida se assume caffè amaro falsissimo qof khamra cabay hadduu caffè cabo ogaalkiisa isla markii hore ugu soo laabnaa vermia no l'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di alcuni farmaci sedativi esatto farmaciyada qaar daawooyinka lagaa siiyo waxay dhibaato u geysan karaan gaarigooda se un infortunato della strada ha riportato frattura agli arti con fuoriuscita di un osso lafaaba soo baxday bisogna cercare in waxaa loo baahan yahay reposizionare in lagu celiyo meesheeda lafta soo booday inay tessuti falsissimo waxaas dhakhtaraa ku shaqo leh okay Stefano so falso esatto qiimo badan maasha Allah sida noo muuqato casharkeena saas ayaan ku dhamaynay wuxuu ahaa argumentaha 22aad qaybtiisa afraad qaybta quiz insha Allah billahi kareem hadda waxaan fiirinaynaa natiijada intaan qaladnay intaan saxnay doolirada okay maasha Allah saab qiimaha qaaya badan casharkeena saas ayaan ku dhamaynay sida inay muuqataba waa argumentaha 22aad qaybtiisa afraad si qurux badan ayuu noogu dhamaaday waxaan rajaynayaa idinkana sidaas oo kale noo samayn doontiin guuleysta aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته